بسم الله الرحمن الرحيم كلنتي wanaagsan daawadayaal magacaygu waa Maxamuud Soomaali channelka aad daawanaysaan waa Gosol Production ku soo dhawaada barnaamijkii dhalinyarada aan horay idinkugu sheegnay in aan idin soo gudbin doono anagoo barnaamijkaasi ku eegayno hal dhalinyarada hal abuurka leh in aan idin la kulansiino sidoo kale dhalinyarada fikrada fiican leh waxa ka gooxaya in aan idin soo gudbino ayna idin la wadaagaan waxyaabaha ay damacsan yihiin mustaqbalka in ay sameeyaan iyo waxyaabaha ay rabaan inay horumarka sameeyaan barnaamijka maanta waxa iigu marti ah Axmed Costa hadaba aan idin kala baxo si uu isu kiinbaro soo dhaw bismillaahir rahmaanir rahiim magacayga horta aan ku bilaabo magacaygu waa Axmed Kaas Cumar sida magacaygu ku shaabaxay ama ay garanaysaan waxa weeye Axmed Costa photograph inta ay garanaysay iyo qof walba oo muuqaalkan daawanaya waa salaamaya inta aan luqadan ku wada hadalno oo afkayga fahmaysa marka waad waxa ahay mid kamid ah dhalinyarada ku nool magaalada Boosaaso ka ganacsata sawir qaadida ma dhahayo ninka ugu fiican ba ahay laakiin waxaan isu maleynayaa in aan macnaha heer sare aan ka marayo macnaha sawir qaadida waan u maleynayaa in ay soo dhaweynaysaa maadaama aan channelka Maxamed Soomaali oo Gosol Production aan ka soo muuqanayo maadaama aan ahay nin saaxiibkiisa aan ka fogeen aan ka soo muuqan doono fiidiyoyaal intan ka sii dambeeya ama fiidiyoyaal kale aan jeclahay hadii Ilaahay uu waqtiga noo saamaxo ama baday aan isla sii joogno aad u maasantahay Axmed Qaasin Costa Photography waa qofka fudeeyay qalabkii aan ku duubi lahayn fiidiyogan waye Axmed Qaasin Costa Photography lamarkiisa description ka hoose ayaan idinku reebiyaa sidoo kale waxaa la doonayaa in aad ku xirnaataan footadiisa waxaan rajaynayaa in aad macmiil wanaagsan la noqotaan hadde friendskayga maadaama aad tihiin iyo saaxiibadayda isagana waa saaxiibkiin sidoo kale ku xirnaada ayaan idin leeyahay Axmed Qaasin waxa weydiinayaa su'aasha aan weydiin waxa tahay maadaama aad tahay qof ma taqaana dhalinyaro ka ganacsadana ama xirfadaasi kaamirada ku ganacsada maxaad is leedahay in aad ka bedesho maadaama hadda aad sawir qaadista ku egtahay mis leedahay waxyaabo kale aad soo kordhisid xafladaha in aad duubto sidoo kale aroosyada in aad duubto rajacaysa in aad fiidiyo ceenkaas kale soo kordhiso waa maasan tahay mulkiilaha Gosol Production Maxamed Soomaali aad baa u maasan tahay waan ku faraxsanahay in mar labaad in aan soo fariisto channelkan horta qof diidaya ma jiro in macnaha uu hami sare gaaro oo meel sare uu koro hamigeyguna waa hami caaliya oo waxa rabaa foqo ugu sareeya in aan ka gaaro waxaan shaqadan aan ku guda jiro aniga oo huba dadaalkayga waxaan isleeyahay waxa ka gaaraysaa meel sare ma dhahayo kan ugu fiican baa ahay meeshan aan joogo laakiin waxaan jeclahay in aan gaaro meel sare kadibna horta anigu waxaa sawir qaaday fiidiyoyadana waa duubaa laakiin waxa laga yaabaa waxyaalo badan oo aan damacsanahay oo aan wali gaarin in aan macnaha hadii aan niyadayga jirto laakiin wali waxa isu kay qabsan lahayn xaq cilado farsamada iyo qalabka ay ka jirto laakiin waxaan jeclahay insha Allah in aan sii weyneeyo oo arrimahan aan ku guda jiro waxaan jeclahay in aan meel sare ka gaaro insha Allah aad oo maasantahay su'aasha xigta aan ku weydiinayay Axmed Qaasin maadaama aad tahay photographistiyaasha ama sawir qaadiyaasha ku nool magaalada Boosaaso aan is oran karo kuwooda ugu caansan inaad tahay kuwaas oo ay ku xiran yihiin dad aad u fara badan goorma ay kugu dhalatay inaad ku biirto xirfadda sawir qaadista aad baa u maasantahay horta xirfadani waxay ugu dhalatay horta waxaan is ogaaday qof walba waxa uu leeyahay wax uu dadka kale kaga fiican yahay malihi dadka kale ayaan kaga fiican laakiin qof waliba wuxuu leeyahay talent uu qofka kale dheer yahay waligaana ma noqonayso qof kale wuxuu ku dheer yahay horta waxaan is ogaaday in aan ku fiicanahay sawir qaadista aan muddo dheerna aniga oo aan kaamirad lahayn oo aan qofna sawir ka qaadin aan anigu sawirada iska qaado sida aan u dhadgareeyo kadib markaas ay ugu dhalatay waqtigaasna waqti aad u fogmeeno wuxuu adigu waxa ka soo wareegtay sanad iyo bar adigu kaleeto baa ka soo wareegtay markaasna ugu dhalatay in aan noqdo ka hor horta waa jeclaan jiray in aan sawir qaade ama muuqaal sameeyo noqdo markaas sanad iyo bar ka horna way ugu dhalatay arrinkan waxaan jeclahay in aan arrinkan aan soo galay maadaama aan lugta la soo galay in aan intan ka sii weynayo oo aan meel walba oo macnaha
in aan noqdo shirkado waaweyn oo kaleeto aan muuqaal u sameeyo sawir kaliyana ma aha hamigaygu waxaan rabaa muuqaalo badan inaan sameeyo ama ha ahaato shirkado inaan u sameeyo ha ahaato muuqaal nafsadeeda iyo dadkayga ah insha Allah arrinkan inaan kusii fogaadaan jeclahay aad waa mahadsan tahay Axmed Qaasin su'aasha sheegtay aan ku weydiinayo waxay tahay maadaama aad tahay haddii aad tiri waxaan ka leeyahay hami aad u weyn marka ma isleedahay meel lagugu soo hagaago oo xafiis ah ayaad samaysan doontaa waa su'aal aad u wanaagsan waana de su'aal aan islahaa markii aan halkan soo fariisanayay aad igu casuumaysay channelkaaga wuu ku weydiinayaa aad baan u mahadsan tahay horta waxaan ku yidhi hadalkii hadda ka horeeyay waxaan ku yidhi waa sii weyneynaya oo arrinkayga waa sii ballaarinaya oo muuqaalo iyo waxbaan sameynaya taasina dee waxay ka tahay midda koowaad bu weeye haddii aadan lahayn meel lagugu soo xiriiro waxay ila tahay macnaha mar walba qofku intuu kusoo waco macnaha intuu kusoo waco danta uu leeyahay oo dhan kaagama wada gaari karo adna de wixii uma wada dhammaystiri karto aad baa u mahadsan tahay maadaama aad tiri xafiis baan soo kordhinayaa oo aad tiri meel liigu soo hagaaga ayaan samaysanayaa marka ma isleedahay asxaab kale oo saaxiiba haddeer kuu dhow miyaa jira oo aad xafiiskaasi isla furanaysaan mise waxaad leedahay adigu keligaada in aad furto ayaa doonaysaa dabcan laga yaabay horta far kaliya fool ma dhaqdo oo dad waa u baahan tahay waa jirtaa dad badan oo macnaha aniga iyo khibrad tareeyo oo magaaladan ku nool waana dhici kartaa in aan intaa ula tago ila qabta ama arrinkan idinka iga horeeyay wax ila toosiya ay yiraahdo laakiin waxaan jeclahay insha Allah wax aniga igu kooban ama de aniga aan leeyahay in aan sameesto Axmed Qaasin maxaa leedahay dhalinyarta ku daawanaysa iyo waxa leeyahay horta waxaan dhahayaa horta aniga idinka waa isbaran caaway oo de caawi waa isbarano waa isugu ka horeysa laakiin noqomayso video ugu dambeeyay oo aniga idinka aan is aragno sida aragno habeen walba ama de saacad walba oo soconaysa dad ayaa kusoo kordhaya aad baan u mahadsantihiin dadka ninkan kusoo kordhana waa dad aniga igu soo kordhay oo kale waxaan jeclaan lahaa qof walba oo daawada waxaa jira dad badan oo muuqaalkan daawanaya ama ku taageeraya laakiin subscribe-ka ku taawanin midda koowaad ee nagu caawin kartaan waxay tahay inaad subscribe-ka taabataan hana ilaawin gambaleelka meelaha yarka yaala oo inaad farta iskaga taabato waayo waa wax adiga ku fudud oo macnaha meel aad tagayso ka soo shaqeynaysa maaha wax ku fudud weeye ninkaana waxay u noqonaysaa dadka u kordhinaysaa dheergelin bay u noqonaysaa qofka horay u soco oo kaleeto way hore u socod inuu sameeyo waxa ka caawin kara idinka ka caawin kara hana ilaawin calaamad yare like-ta aad baa u mahadsan tahay kaasi wuxuu ahaa Axmed Qaasin Cumar oo ka mid ah sawir qaadayaasha ku nool magaalada Boosaaso anagoo barnaamij idinkaga soo sameynay barnaamijkii dhalinyarada ayaa daawanayseen barnaamijkan intaas ayaan ku soo gudnaanaynaa waxaan kaga taginaa sida ay amaana Allah hadaba channelka subscribe saar gambaleel icon kana furo si video kasta uu kugu soo dhaco